kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona filla Soomaaliya oo waqtiga ka bilaabanaysa xaalad adag iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka iyo go'aamada ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sargaal sare oo ka tirsan NISA oo dacwad u gudbiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble maxay tahay dacwaddaasi warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa iyo wararka ku aadan xaaladda Itoobiya iyo go'aamada ay Puntland ay hadda ay soo saareen ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta wararka idinku soo gudbin doonaa haddaba daawad haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka isla markaana wararkeena like iyo share commentiga noo dhaha wadna mahadsantihiin aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya daawadayaal sargaal ka tirsan NISA ayaa waraaqad xasaasi ah u diray Maxamed Xuseen Rooble waraaqadaani oo 3 maalin ka hor la gaarsiiyay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay soo saareen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa si hoose maanta u soo gaartay warbaahinta saraakiisha waraaqada ku taariikhaysan 4 bishan u diray ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale gaarsiiyay wasiirka amniga gaashaandhigga cadaaladda iyo taliyaha booliska waxaana looga hadlayaa arrimaha xasaasiga ah ee ugu horeeya dil la sheegay in uu ka badbaaday taliyaha dabagalka NISA Cornel Cabdullaahi Dheere iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo hadda NISA ka dhex taagan saxaafadda ayaa waxay si hoose ku heshay xogtaani iyo qoraalkaani waxaana ugu horeeya oo lagu sheegay waxyaabaha NISA ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada agaasinka xuraanka iyo sidoo kale kan sirdoonka ee caasimadda ayaa si toos ah u dalbanay in ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kale ee loo diray in baaris degdeg ah lagu sameeyo isku daygii la sheegay in 27 bishii tagtay ee December 2021 lagu qaarijin rabay taliyaha dabagalka Cabdullaahi Daahir oo ku magac dheer Cabdullaahi Dheere qaybahan hadda ay soo saareen ayaa waxay u muuqanaysaa in dhibaato kale mar kale ay gelin karto iyadoona cadaadisyo kale ay imaan karaan hase ahaatee warar hoose ayaa sidoo kale sheegaya in wasiirka amniga oo qorsheynayay inuu guddi u saaro cabashada iyo digniinta ay soo direen saraakiisha ka tirsan NISA xaaladda dalka ayaa u muuqato mid ku jirto hubanti la'aanta amniga iyadoona dhibaatooyinka doorashooyinkana ay taagan yihiin sidoo kale filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa faragelinta geedi socodka doorashada iyadoona ay taasi u muuqanayso in ay aad u adag tahay xaaladaha kala duwan taliyaha dabagalka NISA Cabdullaahi Daahir Cabdullaahi Dheere ayaa dadka ka agdhow waxay tilmaameen in galaangal badan uu saameyn weyn uu ku yeelan doono xaaladda guud ee siyaasadda iyo sidoo kale la sheegay in xaalad kasta oo jirto waqti kale loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xaliyo dhanka kale abaabul xoogan oo xilka looga tuurayo Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa hadda uu ka soconayaa filla Soomaaliya xafiiska madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh taasi oo la soo warinayay in qorshe cusub la dejinayo madaxweynaha ayaa xalayta ka hor yimid talaabadii uu shalayto ra'iisul wasaare Rooble qaaday ee ahayd in lacagtii imaaraadka laga bixin karin gudaha bangiga dhexe ee dalka Farmaajo ayaana amar duldhigay gudoomiyaha bangiga dhexe isagoona faray inaan lacagtaasi u gaarayso ku dhawaad 10 milyan oo doolarka Mareykanka aan la bixin karin siyaasiyiinta ka dhow madaxweynaha ayaa sheegaya inay socdaan qorshe lagu magacaabayo ra'iisul wasaare cusub oo bedel u noqon doono Maxamed Xuseen Rooble maadaama hanaan siyaasadeed waqtigan ay isku fahmi laayeen suurtagalnimada waqtiyada soo aadan ayaa la sheegay in lagu dhawaaqi doono ra'iisul wasaare hoosha doorashada meesheeda uga sii wado maadaama Rooble lagu eedeynayo dhulul danta guud ah oo dhisanayo waqtigan waxaana taasi u muuqataa in ay dhibaatooyin fara badan ay u dhalin karto Farmaajo ayaa la tashiyadii u dambeeyay la yeelanaya dhinacyada ka dhow si loo soo saaro digreeto ka dhan ah Maxamed Xuseen Rooble isla markaana lagu magacaabo ra'iisul wasaare cusub warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in Cali Maxamed Geedi laga yaabo in loo magacaabo ra'iisul wasaare taasina waxay noqon kartaa in ay dhibaato fara badan ay mar kale u geli karo dalka Soomaaliya khilaafka Rooble iyo sidoo kale Farmaajo ayaa waxa uu muuqanayaa mid xaaladiisu ay ka sii dareyso inkastoo bulshada caalamku ay hore u sheegeen in mar walba si gaar ah loo baahan yahay wax waliba khilaaf ah in waqtigan Farmaajo uu ka fiirsado filla Soomaaliya ayaana mar kale xaalad dagaal oo toos ah geli doonto waa hadii ay dhacdo in ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo beesha habar gidir oo ka soo jeeda ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxay wadaan hub aruur
kursigii ugu dambeeyay haddii ra-iisul wasaare Roble meesha laga saarana waxaa dagaal uu toos ah uu ka bilaaban doona magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee waqtiga kan ka jira ayaa waxay tahay mid qorshaha ugu weyn ay leeyihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo shakhsiyaad kale oo ka agdhow tanina waxa ay u muuqataa in xaaladda hadda siyaasadeed ee cakiran ee dalka ka jirto inay dab ay ku sii shidayso haddii uu ra-iisul wasaare magacaabo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble ayaana weli wax go'aan ah oo cad oo ku aadan xaaladda doorashooyinka dalka ilaa hadda aan gaarin. Shir 5 maalmood kaga soconaya gudaha magaalada Muqdisho, madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, gudoomiyaha gobolka Banaadir, oo aanan wax natiijo ah aan ka soo bixin shirkaasi. Shirka golaha wada tashiga qaran ee maalintiisa 6aad ka dhici doono birita gudaha caasimadda dalka ayaa waxaa dooda adag weli uu gelinaya arrimaha amniga iyo dardargelinta doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madaxda golaha wada tashiga ayaa ka doodaya xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira iyo sidoo kale amniga guud ee dalka sidii loo dardargelin lahaa. Madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa hore waxay u sheegeen inay si cad u taageersan yihiin ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ah ra-iisul wasaaraha dalka, iyadoona sidoo kale go'aamada kala duwan ku tilmaamay ee mararka qaarkood noqon karaan kuwa saameyn badan bulshada ku yeelanayso. Shirkan ayaa waxaa maalinta berito ku biiri doono madax ka tirsan midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya, kuwa oo si gaar ah kaga hadli doona cabashooyinka ay qabaan maadaama go'aamo adag lagu wado in shirkan laga soo saaro haddii shirka intuusan bilaaban ka hor ra-iisul wasaare cusub la soo magacaabo. Waxa uu dalka u geli karaa xaalad adag oo soo kabasho aan lahayn maadaama Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Roble khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo. Shirka ila ku dhow ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in laga yaabo in uu shirkaasi uu ka qayb galo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Gooxa siyaasadeed ee Muqdisho ka jira ayaa waxa uu yahay mid aad u adag, iyadoona weli wax war ah aan ka soo bixin beesha caalamka oo garwadeenka ah xaaladda siyaasadeed ee waqtiga kan ka jira. Madaxda maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa sidoo kale laga yaabaa inay gebi ahaanba Muqdisho isaga baxaan, iyagoona ka cabsi qaba in dagaalka Muqdisho ka bilowdo uu saameyn badan uu ku yeesho. Dadka shacabka ah ee reer Muqdisho ayaa u dhagtaagaya wax waliba oo dalka waqtiga kan ka soo kori kara iyo sidoo kale isbedelada kala duwan ee waqtiga kan bulshada Soomaaliyeed ee rajeynayso. Ugu dambeyntiina guud ahaan xaaladda wadanka Itoobiya ayaa waxay u muuqanaysaa in dowladda Itoobiya weli ay doonayso in ay dagaal toos ah ay la gasho wadamada Masar iyo sidoo kale Suudaan. Wadamada Masar iyo Suudaan ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay taageero xoogan waqtiga kan ay u muujinayso dowladda Itoobiya kooxaha sida gaarka ah kaga soo horjeedo. Jabhadda TPLF oo si gaar ah kaga soo horjeedo hanaan siyaasadeedka ra-iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Mr. Abiy Ahmed ayaa waxaa weli ay la sheegayaa in ay dagaalo kala duwan ay ka wadaan qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta wadanka Itoobiya ayaa dagaalkaani ka soconaya waxa uu yahay mid sanad jirsaday, iyadoona shakhsiyaadka mucaaradka ku ah dowladda uu hogaamiye Abiy Ahmed gebi ahaanba xabsiyada laga sii daayay. Waxaana maalmaha soo aadan laga yaabaa in saraakiisha sarsare ee jabhadda TPLF ee go'aan qaataan oo ah go'aankaasi mid gebi ahaanba lagu joojinayo dagaalka waqtiga kan xaadirka ah ka soconaya wadanka Itoobiya. Wadamada deriska la ah Itoobiya ayaa horey waxay u sheegeen in wax waliba laga maarmaan ay tahay in la joojiyo, isla markaana mar walba ay bulshada wadanka Itoobiya xaalad kasta oo jirto saameyn ay ku yeelan doonto. Guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga inta daba daawade. Haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, isla markaana wararkeena like iyo share kii commentiga noogu dadaala.